dhismayd xilligii dawladda kacaan kadibna hubkii dawladda isku gumaaday haafmilyan wax ka badan ba ummadda Soomaaliya iska leysay ilaa haddana mushkiladii qabaa'ilka iyo dhibaatooyinkii dagaalada sokeeye ma xalismin marka rajadii la qabay oo ahayd in waddanku soo fiicnaan doono waxaan filayaa in hadda god ay ku dhacday maadaama iyadoo ka 45 dagaalka labaad adduunka lagu galay iyadoo la isku dhameeyay waxaan filayaa natiijada ka dhalan karta hub casri ah oo 2023 ah haddii waddanka la keeno dhibaatada ka dhalanta intay la eg tahay dadkani waa dad mataqaanaa qabaa'il ah raas iyo qoys isku laaya muddo badan mataqaanaa colaado soo jiray oo ka dhashay dhulal iyo guryo iyo ka dhashay xoolo geel ka dhashay isu qaba dawladdana dawlad xoog badan oo hubka ilaalin karta ma ahan oo waxaa hadda dhacday in hub deeqa loo siiyay dawladda ay ciido kale